سرو عبد اليعقوبة هيسبوك على بحا سرو وعهين بعهين عن وهايين سرو وعهين بعهين عن وهايين مسان عبد الله هادنكي هيسان بحايا مسان عبد الله هادنكي هيسان بحايا نعدورو محمد ما كلمة كارين نعدورو محمد ما كلمة كارين عدو عبد العريركي عداو عدو عبد العريركي عداو سليمان عبد الله هون الكريم سليمان عبد الله هون الانسان سكارين عبد الله وما القوين وانا العدود ساري عبد الله وما القوين وانا العدود ساري ما هذه لا بحال مر لها وانا مقاعياغا inta lagu guda jiro bisha September waxay beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ku asteysteen maalmaha sanad guurada calan astaan ayaga u ah halkan waxaa ka socda munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayo sanad guuradii labaad ee midowga iyo isku soo dumida beeshan munaasabadan oo maanta ka dhacday magaalada Mirjicley ee waqooyiga gobolka Galgaduud waxaa ka soo qayb galay fanaaniin waxgaradka deegaanka dhalinyarada iyo hablaha deegaanka oo ku labisan calan astaan oo ah beeshan qaar ka mid ah dhalinyaradii waxgaradkii madashan ka soo qayb galay ayaa ka jeediyay heeso baraambur dhiirigelin iyo gabayo ugu horeyn gudoomiyaha ururka dhalinyarada Ayuub oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay munaasabadan marka calankan waxa weeye dhalinyaro soo aliftay xafladiisii u horeysay Muqdisho ka dhacday waa la wada soconaa waxay ahayd sanadkii hore waxa ka qayb gashay 200 qof tii dambe waxa la waayay meel kale istaaga xaqiiqatan waxa lagu casuumay 1,000 qof waxay noqotay in 5,000 oo qof gaarto marka eeba maas kale maadaama aan soo aqoonsanay maanta eebihi intaasna waafajiyay ayaa horta maas kale waxaan kaloo marka rabaa in reer Mirjicley u dhaco marka intaas ka gudbo annaga reer Mirjicley maantay horta xafladdu waa soo daahday waa naga dib dhacday laakiin alxamdulillah maanta xilli fiican ku soo aaday sanadka dambe waxay tagi doontaa in aan ciidu naga hormarin sida tawfiiq oo kale ila la barkow qaadan horta tagi doonta insha Allah marka waxa rabaa oo kale aan nasiib u yeelanay waxa ka soo qayb galay dhalinyaro ka timid degmada Xaraale waxa ka soo qayb galay degmada Hursha dhalinyaro ka timid waxa ka soo qayb galay dhalinyaro Muqdisho awgana uga timid waxa kale oo ka soo qayb galay abwaaneen waaweyn oo ka mid ah abwaaneenta lagu jecel yahay maanta fanka Soomaaliya waxa soo imaan doona oo mar dhowna soo gaari doona abwaan Cabdinaasir Cirro iyo sidoo kale alfanaan Mawlid Jarmal marka waxa la rabaa dhalinyarada noo timid oo Xaraale ka timid Hursho ka timid Xamar ka timid ayagana waxaan rabaa inaan farxad u muujino maadaama degmooyinkoodii aanan u tagin degmadayadiina ay ugu yimaadeen ayagana in la soo dhaweeyo rabaa sababtoo ah waxa la rabaa inaan Xaraale tagno inaan la jiido tagno inaan tagno meesha la yiraahdo Hursho inaan tagno tawfiiq marka waxaan kala rabaa waxa joogta ilma hadal kuma jira dhalinyaro ka timid la jiide ayagana in la soo dhaweeyo rabaa waxaan idin leeyahay maanta waxaan u dabaaldegaynaa waa xafladuna waxa la rabaa in xaflad markii la isku yimaado aysan ahaan meel la isku yimid kaliya ee la ogaado qiimaha iyo wacyiga ay leedahay astaan ahaan hadaa idin siiyo sida uu sheegay gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee degmada Mirjicley astaantan hadda uu ku sawiran calanka ah waa astaan aad u qiimo badan waxay leedahay wajiyaal fara badan mid waxa idin tabtay afayeenka hadaa hal tusaalo kala idin siiyo astaantan hadda hortiina ku sawiran oo arkaysaan waxay leedahay calaamado fara badan meesha ugu horeyso cadaanka waxay ka turjumaysaa dalkeena asal ahaan marka hadda aftiriskan aan socono oo ka soo jeedno sida dalka Djibouti waxa kale oo ku dhagan midda dooga oo ah jamhuuriyadda barakaysan ee Soomaaliland waxa ku dhagan halkii weynaa ee geedkii weynaa la isku imaanayay oo si fiican u fiirsan magacu meeshu dul saaraya oo ah magacii u sareeyay ee dalkeena iyo dadkeena iyo abtiriskeena oo ah magaca Soomaaliyeed
waa meesha ugu sarraysa ma ahan markii meel la iskugu yimaado xafladdan waxay ka turjumaysaa xaflad qabiil haan oo ah wixii Soomaaliya ku tagtay ilaahay wuxuu yiri wa qabaa'ila la ta'aarafu inna akramakum indallaahi atqaakum ilaahay wuxuu idin abuura qabiil si aad isku aqoonsataan macnaha shucuubtaas aad tihiin inaad isku aqoonsataan ee la kuma abuurin in qabiil dadku la iskugu dhibaateeyo laguma abuurin inna akramakum indallaahi ilaahay midku ugu taqwada badanna waa midka ilaahay agtiisa ugu taqwa midka ugu karaamada badan weeye qaar ka mid ah fanaaniintii madashan lagu cazumay ayaa soo bandhigay ciyaar dhaqameed aad u qurux badan ugu dambeyn suldaanka beesha Sure Suldaan Maxamed ayaa u mahad celiyay dhalinyaradii madashan soo agaasintay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa wiilal iyo gabadho dadka qiimaha badan leh ee maanta xafladda jooga una soo diyaar garoobay inay bideeyaan midnimada beesha Sure waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh xafladdan magaceeda waa magaca beesha Sure insha Allah biidillaahi alkariim waa sanad guuradii labaad laakiin waxaanu gaari doonaa inaan sameeyno xafladda guud ee beesha direed mid ah oo aanu ka gudubno beesha Sure Xuseen Cali Xuseen warbaahinta qaranka Mirjicli